kulan waxaan wanaagsan qaarta wadana lacagta halkan oo barta YouTube kulana mar banaga la socotaan waxaan ku soo qaadan doonaa gudaha dalka Ethiopia dagaalo culus iyo dhibaato badan oo lagu soo sheegay aan soo qaadan doonaa BB oo shir weyn ka yeeshay xaaladda soo kortay iyo cabsida weyn ay ka qabaan Eritrea iyo Tigray ayaan soo qaadan doonaa waxa kale soo qaadan doonaa dowlad deegaanka Soomaalida oo weerar toos lagu yahay xaaladda iyo qorshaha dowlad deegaanka shacabka u degsan ayaan soo qaadan doonaa waxa kale soo qaadan doonaa بلد حاول يا حالة ده أحمد أبو جبلان عيد مدة وترى بدنا صور ده مش لو يقان بي أو دولت كمجال ده بلد حاول أي سوق عندنا دولة فيرق سوماليا قرشة كله ده قبل كده يرجع عندنا نفس كده دولة وكجرا أي سوق عندنا بنك أي سي قاتم سوماليا أنا حالة ده ولي تاجن هر عرقة بوعدكم مرة إن لا سعادة لو كلا بيحدونه سوماليا نبودنا لو بدنا عكس ويردونه أرتسنا وفلقين دونا حالة يقولون بينك أي أيضا وفلقين دونا جيبوتي يمركز أبارها كل فترة دنك أي أول استيد أي سوق عندنا برامج شرقري ملفقر سويها برامج يقول سوقن صاحبك فرقود أروينا أحكي وديو فرقود برامج كسر هو مركز وحنا ور مرتاح إثيوبيا يا حالة دي شركة بي مركز ماشي هذا وحمر يعني gooni aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidoo kale waxaynu halkan ka salaaminaa ama ka bogaadinayna guud ahaanba bulshaweynta Soomaaliyeed ee dal iyo dibadba ku kala sugan ee halkan mar walba nagala socda wararka Ethiopia kuwa Soomaaliya meel walba oo ay maartay ay doonayaan in laga haqabtiro Dr. Abiy Ahmed waa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia wuxuu isugu yeeray gabi ahaanba xisbiga EPP ayuu isugu yeeray markii hore wuxuu ahaa qorshuhu gooniyo inuu muddo 3 beri ah uu shirkaasi ka socdo magaalada Addis Ababa wax badan lagu qiimeeyay laakiin Abiy iyo qoladii guddiga ee qabanqaabinaysay gabi ahaanba shirka way isbedeleen waxayna sheegeen shirkan inuu soconayo muddo 9 maalmood 9 maalmood waxay sheegeen in lagu sameyn doono reform oo ay suuragal tahay reformka mar hadii la yiraahdo waxa suuragal ah kulli way ku dhex dagaalami doonaan madaxweynayaasha deegaanada way ku dhex dagaalami doonaan in ay suuragal tahay in madaxweynayaasha waliba saddexda ah waa Addis Shimlis awal arba iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar in xilka qaadis lagu sameeyo ayay aad u badan tahay waayo guddigu waxay sheegeen Abiy laftiisuna uu sheegay in reformkan uu yahay mid sal iyo baar taabanaya oo guddiga fulinta ilaa iyo kuwa dowladda deegaanka Soomaalida waxaan dowladda deegaanada ka madaxda iyo maxaan ku dhahay diibaha ku samagul yahay iyo kuwa degmooyinka jooga dhammaan inuu taabanayo reformka ayuu sheegay oo nin walbaba positionku ku wanaagsan yahay iyo meesha loo dhiibi doono ay dawladdu ka arrinsanayso marka ma yara waa dareemi karaysaa shir muddo 9 maalmood socda waxa dareemaysaa in halka la isku rifi doono warar hadda maanta isoo gaadho Addis Ababa maraan la hadlayay waxay ii sheegeen in saddexda madaxweyne focusku uu saaran yahay saddexda madaxweyne inuu focusku saaran yahay marka Abiy wuxuu doonayaa inta colaadan ayna bilaaban kulli colaad baa bilaabanaysa oo TPLF iyo u dhaxaysa Eritrea iyo maxaan ku dhaw isku barbara iyo hadii bay ku samagol yahay Abiy iyo dawladiisa barbarahe yaa bilaabanaysa intayna bilaaban ayuu Abiy wuxuu rabaa inuu ku marmarsiyoodo inuu dhaho dadkan way fahmeen nidaamka ama systemka Ethiopia fahmeen marka kulama dagaal gal kara marka wuxuu rabaa wajiyo cusub oo dagaalka la galo oo dadka ku shubu rabaa waayo nimankan waa niman oliya waa niman ku xidaystay waa niman magarasa waxyaabo far badan ka diidaya way marka arintaas oo taagan darteed ayay u dhowdahay baa la leeyahay Abiy Ahmed inuu wajiyaashan cusub sida Addis oo kale Addis Shimlis oo kale ninka lagu magacaabo awal arba oo kale oo asagana oday maxaan ku dhahay xalfiyada deegaanka Canfarta madaxweyne Mustafa oo asaga laftiisu dabar aan shideen saddexdaaba waxa suuragal ah in meel kale loo magacaabo hordhacoodina way bilaabatay oo 2 bari ka hor waa kii madaxweyne ku xigeenka deegaanka Oromiya loo dalacsiyay wasiirka beeraha kuwana waa suuragal in wasiir laga dhigo ama wasiir ku xigeen laga dhigo oo meel kale loo dhidhiibo si xukunkooda looga wareejiyo kuwa kale oo yeesmaan oo xukunka ku cusub oo qorshayaasha EPP iyo waxyaabahan fulinayana uu Abiy Ahmed uu keensado marka xaaladu yani Ethiopia lama saadaalin karo farqadu waa maasantahay xaaladaasi waa arki doonaa dowladda Ethiopia iyo Eritrea qorta isugu jiraan TPLF iyo Eritrea maxaa la isku dhinacay mareen Abiy Ahmedna xaaladda ay ku xun faana dhinac kale ka dagaalamaysa dowladda Djibouti iyo Soomaaliya dhinac kale ka dagaalama xaaladu ma sahlan farqadu ciidamada Jubaland waxay soo weeran leeyahay balad xaawo waxayna ku sugayeen dagaal lagu magacaabo BB waxay sugayeen ciidamada afmadow ka soo socdo oo ka soo gudbay Kismaayo soo gaar afmadow marka ciidankan waxa leeyahay waxay si toos ah u qaban doonaan magaalada balad xaawo kadibna doolow ay u sii gudbi doonaan oo ciidamada Jubaland ee halkaas ku sugan ay rabaan inay u tagaan marka maxay noqon kartaa doolow iyo yadii mar la yiraahdo balad xaawo labadaba dagaal ka qarxay kuwa ku sugan Jubaland ee ku sugan doolow waxa la yiraahdaa soo bixinina maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay daawo mari karto waa ina halkiina joogtaan balad xaawona anaga qabanayna leeyihiin marka xaaladdu ma sahlano gobolka Gado maxay ku dambeyn kartaa wallahi gobolka Gado horta xaaladiisu way culus tahay
waxaana meeshaas dee waad ogtahay oo si weyn ugu dagaalamaya madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan iyo maxaan ku dhahay cabdirashiid janan oo hay-adda nise gobolka maxaan ku dhahay gada u qaabilsan iyo ciidamada iyo guud ahaanba deegaanada u qaabilsan ayaa ku dagaalamaya marka barnaamijku waxay u muuqataa barnaamij hadda wixii ka dambeeya hab yar qabiil isu bedeli kara haddii aan ciidamada dhanka afmadow iyo deegaanada laga keenaya aan laga joojinin waayo hadda durba waxaa ka socda maxaan ku dhaha gobolka gado aruursi baa ka socda oo ah dee cid kalea na soo weerartay cid kale oo doonaysa inay magaranaysa anaga nagu amar taaglayso ayaa na soo weerartay baa qorshaha socdo oo dee cabdirashiid janan iyo saraakiishu ay kaga faa'iidaysanayaan marka xaqiiqatan ani ismalihi halkaa guul baa kasoo socota ismalihi waayo reegad waxay u arkaan dad in lagu soo duulay bay u arkaan labada nin ee hadda maxaan ku dhahay maxamuud sayid iyo maxaan ku dhahay jananka kale asagana meesha ku sugan wasiirka amniga waxaa weeye dhuumaal ninka lagu magacaabo way ku dhex jiraan oo waxbay abaabulayaan laakiin haddana waxay dadkaasi u muuqdaan oo leeyihiin axmed madoobe iyo qabiilkiisiba na soo weerar waana ficlan sida ay hadda u dhigayaan barnaamijka u dhigahayaan marka haddii qabiil bahashu ay tagto wixii qabiil loo bedelo way adkaanaysaa hadda jubbaland iyo dowladda is haystay markii hore oo nidaamka saasaa loo yar dhigahaya markii dambana qoladii jubbaland meesha joogtay waa laga guulaystay hadda laakiin waxaa loo dhigahayaa axmed madoobe iyo maxaan ku dhahaa iyo beesha maraxaan baa loo dhigaya gobolka gado oo ay leeyihiin dee beeshaasaa nagu soo duushay marka aniga xaqiiqatan tala hadday iga yeelahayaan maamulka jubbaland inay halkaa ciidamo usoo diraan oo halkaas ciidamo loo soo diro waa ani aada uguma waafaqsani waxaa fiican in wadahadal laga galo in hawsha wadahadal lagu dhameeyo xabadu macno ma keenayso axmedoobe wuxuu leeyahay anaga dowladdeena iga adkaatay ma rabi dhulka isma dhigi karo nin laan dheeraan ahay maxaa la dhahaa marixaan iyo hawiye aniga igama adkaan karaan waa inaan kor isu qaadaa waa inaan beesha absamaan ka dhashay aan gurmad weydiistaa iyo dhaqaalaba etoobiya iyo wadamo kale waan ku xiranahay imaaraadka carabta lima babac dhigi karo leeyahay wallahi horta hadda meel uu ku yidhi absame iyo maxaan ku dhahay bahashii baan ka dhashay anigana waxay igu soo duulaya dhammaantood waa absame beeraha wiy iyo waxay igu soo duulaya barixaan baa iska celinaya meel horta toos ugu yidhi ma jirto toos idaacad kama dhigi karo laakiin dadka u dhow waxay leeyihiin waxa ciidamada bu-aale kasoo gudbaya meesha la yidhaha afmadow ilaa iyo kismaayo isku xiran waa ciidamada beesha absame oo keliya والله يرتو وصورة قلوي ومدى عن شيء إنه خطر كلا يعني عيد ماذا هيستوى أبرز يا محل فرد أولي محل قرقر واحد عيد ماذا يس محل إذا بهلا ما قاعد له كواس هيستوى مركو حوليه مكوانا أنا هيستوى حوليه اللي يقوم يسنكره ما يهرت ماشي قومي سمية له وأصله حويا أفر تبان صار وكسر من مجال كسمايو أحمد مذوبي هرمر هذا بلارن ولا تعبان كرا وكسميين جبهان بمجرد الدجاجة ناس مركل لقى رهيب يوم وكسماي أمن كده أو مجال داسي ay u noqotay magaalo xarun oo ah Jubbaland oo lagu soo hirto gabi ahaanba maamulkaasi 14 sano oo meesha ka shaqeynayay laakiin waa wax laga qodba qaad kara la dhihi kara wax laga qodba qaad karo maamulaha laga qodba qaad karo laga dhihi laakiin asiiba ku dhagan oo diidanba in maartay deegaanadaasi sida kale loo dhigo oo asagii bahashu wareegta ay noqoto say doonto ma noqoto aniga waxaan isleeyahay dagaalka hadda ka hor ka dhacay Raaskambooni iyo deegaanadaasi koonfurta Soomaaliya ka dhacay iyo mid kan uu kala duwanaanaya wuxuu ku kala duwan yahay kaas waxa weeyaan Jubbaland tan Axmed Madoobe ayaa gacanta ku hayay deegaanadaasi dadka deegaankan Axmed Madoobe tagsan laakiin kuwan waxa weeyaan waa gobolka Axmed oo soo jeeda deegaanka ka soo jeeda waa gobolka Gado beesha Marixaan baa daga beesha Marixaan waxay u arkaan Axmed Madoobe oo 14 sano haystay inuu hadana gobolka Gado uu ku sii maamulo jabay u arkaan iyo dhimasho la faaq dhigay marka iyaguna way dagaalamayaan dawladii bayna futada ku hayaan oo hadda Cabdirashiid Janan ciidamo dawladeed buu wataa oo dhaqaalihi wixii buu wataa dadka shacabkuna way dagaalamayaan haddii qabiil loo tuso oo la leeyahay waxa ku soo duulay Axmed Madoobe iyo qabiilkiisa way ku soo duulay marka waxaan dhihi lahaa barnaamijkan hadda ciidamada halka lagu soo wado waa barnaamij khaldan way المهم إن دولة وصلنا كمان تقال مكان وبرنامج خالدان وي أنا وحدي له إذا ماذا يقولش هالك أو كوسو ضلالي أحمد مذوبي هكتشوتشيو برنامج كالوضع هذا المامل كجبلان هكجلين قبل كجري أحمد مذوبي وضع هذا الوحول بهالقول دمية دولة لما كوسونا ضد شعب إذا ما واحد لنا وحيرة أنا دولة فرق كان تاجر سنة يحد شيء جنن مجرد صواب أنا أحمد مذوبي ماذا ليه marka xaaladu way isbedeshay may waxtu waxa la isku haysto waa maamulka weeye maamulkana hadii laga heshiyo wax walba waxa weeyaan way noqon karaysaa iyo la fariisana hada Axmed qof la fariista ma lahayn dadka gudoomiyaasha meesha ka heshiin biro iyo macallimo iyo dadka maxay la fay wixii dhan waxa lagu leeyahay Cabdirashiid Janan hoos kala socdaan marka shirqola loo dhigo damay Cabdirashiid Janan iyo dadkan hadda deegaanka wadaha la furo laakiin ana waxaan aamsanahay
intii axmed madoobe halka deegaanada intuu ciidamo keeno oo uu ku xoreeyo oo ilaa iyo garbahaarey iyo meeshii la oran jiray haddii behe kuusoo mogol yahay gobolka doolow iyo meel kaste oo la dhaho ciidamo maamulka waxaa ka jira jubbaland oo halkaas oo axmed madoobe taabacsan oo afris iyo gorgor iyo hibilkaa iyo meesha aniga ismalihi arrintaas way suurageli arrintaas way suurageli ismalihi way beel baab lagu arkaaba beel kusoo guduushay baa weji kale yeeranaysaa marka ana axmed madoobe waxaan dhihi lahaa middan midii ciidanka lagu xalin jiray ma aha si aan ila muuqato aad iyo aad fargood waa mahadsantahay waa arki doona wax kusoo kordha barnaamij shargare meel gaarsiiya